inkastoo oo jiraan dhalinyarada tusaale ahaan rabitaan baa labada qof ka dhex dhacaya waa la iska helayaa ka helitaan baa marka hore dhalinyarada ku dhex dhacaya deedna markii la iska helo maxaa ku yidhaahdaa jacayl iyo waxbaa la isku sheeganayaa muddaa la wada hadlayaa dad xidid iyo waxbaa la wada noqonayaa marka balamaa la iska qaadayaa tusaale ahaan waxaa ballankaaga qaadayaa geeri maahane wax kale inaysan kala kaxaynin oo kale wacd baa la wada gelayaa inkastoo la yidhaahdaa laba wacd dhex yaala mid unbuu ku weyn yahay marka si muddo loo wada socdo xisihii baa dhammaanaya xisihii markuu dhammaado qof ka mid ah labadii qofood oo wacdkii wada galay baa qofkii wacdka uga baxay qofkii kalena wixii wacdkii iyo ballamihii iyo wuxuu nolol dabcan markuu qofkan ballan ka qaadayay nolol buu ku sawiranayay marka hore marka wixii buu asagoo la cataabayo la xanuunsanay iyo xasuusihii iyo markuu soo xasuusto iyo qofkan uu aaminay oo yacni dhaawacay buu la xanuunsanayaa halkaasna waxaa ka dhalanaya qof inuu daraadda qof kale u xanuunsado marka ma wanaagsana waxaa fiican ilaahay wuxuu yidhi waman axyaaha fakaannama axya annaasa jamiica naf qofkii noole wuxuu la mid yahay asagoo bulsho noole laakiin ka waran haddaa qof inta balan la gashid balankiina aa ka baxdid waa xanuun marka jacaylaha hadda waxaa la yidhahdaa inkastoo dhalinyarada awrahayada maanta adeegsadaan waxaa ka mid ah jacaylka waa beenta ugu quruxda badan bay yidhahdaan ee maanta waaqac adduunka ka jira marka waxaana keenaya waxaa weeyaan fudaydsiga iyo ku ciyaarista qofka qalbigiisa iyo wixii waqtigooda iyadoo aan la gaarin haa inaan ku degdegno kaasaa keenaysa degdegna waa camal shaydaan marka waxaa la yidhaahdaa qaamuuska nolosha ka mid maaha in been lagu wada noolaado ama been lagu wada joogo hadda waxay dhahaan beenaa lagu soo xirgeliyaa runaa lagu dhaqaa ma fiicna ma fiicna waxyaalaha niyadjabka keeno waxyaalaha keeniyo reer ku burburo kale iyo in marka hore la isguursanino oo xagga dhaabac ku dhasho qofka marka hore waxaa wanaagsan in positive-ka negative-ka dhibaatada aad leedahay wanaag aad leedahay qofkaas markaasi wax walba intaysan bilaaban ayuu tanaasulaya ani waan kuu qaatay waxaan kuu qaadan karo wixii uu kala dooran laakiin haddii been ma u dhex gelisid dhibaatada ka dhalanaysa iyo xanuun iyo dhaawac ustaadow horta saa ay sheegtay waxa la jeclaado qof ugu horeeya la jeclaado ilaahay subxaanahu wa tacaala oo wanaagsan jacaylkan adduunka markii laga soo tago kan ilaahay subxaanahu wa tacaala la jeclaanayo waa mid aad u baaxad weyn una wanaagsan waxaa kaloo jira shakhsi dunidan ugu qaali badan in la jeclaado mudan mar waliba diinteenan haddaan jeclaan ilaahay subxaanahu wa tacaala la jeclaanayo waan shakhsigaas waa dareemi kartaa markaan shakhsi ku dhaho shakhsi aan sheegayo adduunkan saaran yahay mar waliba qof waliba inuu haysto shakhsigaasi hadduu inoo leeyahay hadduu u dhintay goonigeed waa qof walbo shakhsigaas haysto markii shakhsigaas la ammaano uu dareemo horuu ka dareema waana hooyo macaan marka nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis waxa uu ku leeyahay rida allahi fi rida alwalidi ilaahay subxaanahu wa tacaala in raali geliyo waalidka rida allahi fi rida wa sakhad allahi fi sakhad alwalidi ilaahay subxaanahu wa tacaala caradiisa waxa ku jirtaa waalidka in waalidka laga cararaysiiyo rida allahi allaha raali lahaanshidiin maxabatullah waa ilaahay jacaylkiisa waa ilaahay inuu ka raalno ilaahay inuu ku jeclaaday lamata waxaan raadinaynaa intaas weeyaan marka jacaylka meel weyn aan ka raadinaynaa meel weyn laakiin agteenu yaala ma aragno jacayl waxyaalan khayaalsan waxyaala yani qofka waxaa la yiraahdaa waxyaalaha ugu badan oo jacaylka yani dhaawac ku sababa ama xanuunka keenaya waxaa weeyaan filashada meel aan oolin wixii aan ba filanaysaa tusaalahaan 5 sano hadda imaan rabto kadib ba waxa filanaysaa nolosha qofka la wadaagi lahayd nolol noocan waa filanaysaa wixii ma gaarisiin kale ma ogid ayadoo la gaarin ba hadhow qofka ka tagaya murugta ugu badan waxay ka imaataa wax aan ogeyn filasho dheer inaad si sawirtid amal dheer filashada taas xanuunka keenaysa laakiin ma dhigi karna amalka xitaa marar qaar haddii uu yahay wacad misana uu yahay dadaal far badan oo ku jiro misana xadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u dhigay waxaan aan laga soo gudbaynin amalkaasi markaas filashada marar qaar dhici karta wallahi anaga horta dadaalkum baa leenahay awood weyn naga sareysaa sida xaqiiqada ah labada qof hadday cilaaqaad wanaagsan oo alle ogol yahay ay isku wada socdaan oo midka kale ka dadaalayo waxaa la yidhahdaa laba ciidan lagama adkaado qalbiga daacadda ah iyo ducada xaqa ah qofkan hadduu qalbigiis daacad yahay oo saliim yahay oo qofkan si dhaba u jecel yahay duco xaq aan uu ku ducaysanayo waxay u badan tahay inay labada qof is helayaan laakiin qofkan hadduu qof kale u caroonayo yani ciil iyo caro la isku qabanayo way adkaanaysaa dhibkeeday leedahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan ka magan gelinay halahaas waxaan rajaynaynaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala wax ugu wanaagsan uu ina siiyo wax ugu wanaagsan waa qofku jecel inaad hesho ha ahaado walaal ha ahaado waalid hadda laakiin ustaadi markaan fiirno si guud u fiirno bulshada ahaan Soomaalideena hadda waxaad arkaysaa jacaylka
family xitaa jacaylkooda is jecel yihiin inuu iska yareeyo mid iska daciifsan mid naaqus uu yahay qaraabadii jacaylka la jeclaanay naaqus ay tahay si guud jacayl markaa u fiirno dhanka Soomaalideena xoogaho kaliya waxaan leenahay laabdaka qofka markii xaalad ku dhacdo inaan laabteen ay kacdo hal aan wax dareen dabcan waxa la yiraahdaa abwaan waxa soo xasustay Allah naxariista abwaan gaariga ereyadu yiri ha lagu ilmeeyo horta dhimo af ma ahe eego la nooliyo ifkaan kaaga baahnaa wax yar oo aqoonsiya marka waxa jirta qofku waxa wanaagsan jacaylka aad u haysid Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri hadii uu jiro qof aad jeceshahay orod u tag u sheeg jacaylka u qabtid si uu qofka ugu xasilo marka waxa wanaagsan qofka inta nool yahay baa wax la isku yahay ifka wax la isku yahay aqoon waxa la isku maaha marka inta nool yahay baa wacan in jacaylka iyo waxyaalaha la isku haylis dirinsiyo wanaaga ilaan aakhir cid istaqaan saaxiibati wabaniga ka dhacaysa marka waxa wanaagsan adiga tusaalaha aniga wanaag baa ku haya wanaaga aan ku hayo in aan ku dirinsiyo inta aad nooshahay hadii ay jiraan inaan xumaan adiga ku hayaan aan ku sheego xumaanta aan ku qabo si qalbigayga yani cafis ugu noqotid adigana xumaanta qof kale ugu ilaalisid taasa wanaagsan laakiin hadii wixii la isku qariyo caqabadaha ka dhalanaysa laakiin hadda jacayl markii laga hadlayo Soomaalideena kaliya waxay focus gareeyaan laba qof waxa ka dhaxay laakiin ma oga kan ka dhaxay aabi iyo wiilkiisa ama aabi iyo gabadhiisa kan ka dhaxay ma fiirino waxaan kaloo fiirinin kan ka dhaxay jacayl ka dhaxay walaal soo dhalatay jacaylka ka dhaxay inta badan korom iskama saarno walaalkayga waaye walaashayda waaye laakiin isma dareensiin inaan jeclaan ninkan waxa laga yaabaa inuu ka xishoonayo walaalkiis inuu shumiyo gacanta uu ka salaamo kadib uu shubo laabta uu galiyo walaalkiis daanka uu ka dhunkado ayuu ka xishoonayaa wallahi waxa kaloo jirto in maxaa la dhahay sheeg labada familiga xitaa cilaaqadooyinkooda labada gabar iyo wiil isla dhashay aan cilaaqadooda fiicneen isla hadlaynin muddo hadda way jirtaa Soomaalideena hadda waan arkay gabar ay la soo heshay ustaad waxay u dhahday Axmedow walaalkayga walaashayda waa dagaalnay wayniga aamusanta inaan la hadlaa rabaa laba walaal isla dhalatay ayaa ka aamusan runtii wax aad looga fiican yahay waaye in arinkaas dhaco waxaana ka wanaagsan labada qof markay wax wadaag yihiin inay wanaag iyo ixtiraam ku wada joogaan isku la dhaqmaan waxyaalaha yani cadeynaya qofka inuu qof kale jecel yahay waxa kamid ah dabeecadda iyo qaab hadalka wanaagsan dabeecadda quruxda badan aad qof ku qaabilaysid qofka haduu qalad ka galo inaad dhahdid oo kale dhib ma lahan waa iska caadi iska cafisid aan uurka waxba ugu qabanin waxa laga yaabaa cafintaas ay cafisay inuu qofkaasi mar kale uu wasan wax ka gelin ka ilaaliyo waxa la dhahaa raaxada cafiska wiligeed way waartaa laakiin raaxada argoosiga ma waarto wiligeed ma waarto marka waxa fiican inta ifkana loo leeyahay in jacaylka iyo muhibbada iyo wanaaga iyo kalgacalka naxariista wax walba la isdareensiyo diintina ina amrayso waayo diintina kalgacayl iyo muhibbada waayo dad wax wadaaga leeyahay qof walba qof kale maalin danka galaysa abwaan kale wuxuu yiri dugteeda geel ninka keeni doono hadii damqasho ka tahay maanta dunida igu sii yani intaan dunida noolahay dareensi waxaan ahay dareensi waxa agtaada ka ahay way markaasaan mudanahay laakiin hadii aan mar dhinto aniga teedii haystaa markaas aniga karbigayga iyo amalkayga ali xisaabiya laakiin waxa fiican inta aan noolahay in qofka kale uu muhibbadiis dareensiyo wanaagan uu dareensiyo taas fiican Ilaahay subhanahu wa ta'ala hayna waafajiyo dhamaanteena reerarka qoysaska xaafadaha walaalaha inay isjeclaadaan diinteena isku jeclaano Ilaahay dadkiisa isku jeclaano waxa uu wanaagsan in la isku jeclaado shakhsi ahaan Ilaahay dadkiisa man habba lillah wa abghada lillah wa man'a lillah wa adha lillah wa man'a lillah faqad istakmala al-iman Allahu akbar marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala jacaylka dhexdeena inaga dhaxeeyo Ilaahay subhanahu nahleeshiyo anaga Soomaali ahaan inaan waa bis jecelnahay Soomaalideena jacaylka aan isku qabno inuu yahay ka dhigo mid laakiin mid muuqda Allah ka dhigo ilaha mid muuqda oo aan isdareensino kala fariinta u diraayo dadka qoysaska isqaba waxa weeyaan noloshaan aad bay u yartahay wayna koobantahay waxa wanaagsan labada qof markay guri wada tagaan oo dun wadaag noqdaan qofka waxa la yiraahdaa saddex waqti waa la bartaa jid ma la martay safar ma la gashay jidin ma la cuntay oo ceesh wadaag ma noqoteen jabad ma la degtay oo guri ma la degtay qofka markaas qofkaas dabeecadiisa iyo qofka saxda ah baa la dhaqmisaa moogta marka waxa wanaagsan qoysaska Soomaalida badan hadda furiinka u bata waxa la yiraahdaa jacayladina guursada maxkamadaha furiinka way ka daaleen marka waxaan fariinta u diriyo waxa waaye tanaasul in lagu wada noolaado in la isku dhimiriyo ubad ba imaanayo hadii ubadkan arkaan aabihiyo yani hooyadii aabihiyo kala tagay oo kale ayagoo isku xinaaqsan isku careysan ubadkii hadhow way xumaanayaan laakiin hadii arkaan aabi iyo hooyo isjecel oo wanaag dhexdooda ka dhaxeeyo wanaagiba ayaga ku beermay ayaga dhexdooda isjeclaanayaan laakiin waxa la yiraahdaa charity begins at home sadaqada guriga ka bilaamataa waalidkii hadiisan ayaga dhexdooda iska bilaabin jacayl dhibaato weyn waa ubadku waxa adkaanaysa in jacayl helaan qalbigooda adkaanaya waa meesha
bulshadu ku ha barbaaraan oo ku bulshadana barbaaraan ay ka soo ka bilaabato aad iyo aad marka waxaa wanaagsan qoysaska Soomaalida badanaa hadda furiinka aad buu u batay waaqica hadda aan nool lahay marka haddii noloshaan aan la isku dul qaadanaynin oo qofkan iinaha uu leeyahay aad ku aqbaleen dabeecadaha aad ku aqbaleenin qofkan guri hala wadaagin oo ha gursan ka fiirsashada ugu horeysa iyo oo waxa asraacay ustaadi ma loo mid waay dadkeeni oo cilmiga oo maxaa la dhahay jacaylka iyo- cilmiga jacaylka uu ku yar yahay iyo dadkii degdegi uu ku badan yahay oo marka horeba joyska iyo ugu horeeya waxa la dooranayo ka fiirsasho aan lahayn oo wixii la iska galgalaayo dareenkeena anagoo raacayno wixii aan ku dhacayno anagoo ka fiirinaynin dan diini ahaan kaliya dareenkeena fiirinayna ayaan gelaynaa marka ugu horeeya marka u dambeysana dulqaadkii iyo dabeecadii iyo diintii iyo dhaqankii lagu dhaqi lahaa waxaan ma lihin ugu dambeyn maxaan kusoo gabagabeynaynaa kala tag iyo Kala tag hin iyo iyo niyad jab qoomameen iyo iyo dagaal qoomameen. wallahi waxaa wanaagsan oo waqtigan waa nagu socdaa waxaa wanaagsan oo kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena in yani maxaa ku yidhahdaa marka ku horeysa intaada waxaan falka aada gelin aad ka fiirsatid degdegna waa camal shaydaan qofkan keliya ha ku raacin muuqaalkiisa qofku wuu qurux badnaan karaa wuuna dabeecad khalafsanaan karaa qofku wuu dabeecad qurux badnaan karaa muuqaalkiisana kuma soo jiidin karo marka waxaa wanaagsan qofka inaadan hal meel keliya aada ku raacin aad meelo badan ka fiirisid qofkan ma yahay qof aad ku xasilaysid waxaa la yidhahdaa nafta gurigeeda dhabta ah waa meesha ay xasiloonida ka hesho qofkan ma yahay qofkii aad ku xasilaysid ma yahay garab markaad u baahato aad cogsatid ma yahay qofkan qofkii yani markaad ilmaysid ilmada kaa tiraayo ku yani ku dejinaayo marka keliya inaan ka fiirin muuqaalka iyo maxaa ku yidhahdaa quruxda guud iyo waxaas ayaan ka fiirin dabeecadahan aan iska fiirino taasaan dhihi lahaa ustaadi ilaahay subxaana wa tacaala waxa aad noo faa'iidaysay bulshadeena iyo walaalaheena ajar ha kaa siiyo annagana kuwii ilaahay subxaana wa tacaala caqligooda cilmiga uu geliyo allah inaga dhigo aniga hal fariina u dirayaa walaalaha maadaama adiga aad joogtid haddana hal fariinta aan diraa waxay tahay markuu ugu horeeyo qofka wanaagsan iyo qofka xun anaga ma garanayn ilaahay subxaana wa tacaala Ilaahay baa garanaya. garanaya. Aad iyo ilaahay aad. subxaana wa tacaala aan tala saarano intaasi wixii ka dambeeya ustaadii maxaad farin u diraysaa walaalaha oo aad baraarujin u diraysaa والله فرينتا أدري وحواي ورتمرك كواد حرق الله واعتصموا بحبل الله جميعا walaa tafaraquu ولا تفرقوا كونوا مركوda waxa u diray الله. waxa waaye xarag alle inay qabsadaan oo rabbigooda ay adeecaan waayo adduunka gabaabsi waaye maxaa ku cid noo ballan qaaday ma jirto inaan ku inaan sii waareyno waayo waxaa la yidhahdaa geeridana curudka dhalaankana way kugu dishaa gabowna way kugu dishaa marka dhalinyarada fariinta u diray waxaa waaye xarigga rabbigeena aynu adkeeno nabigeenana aynu adeecno waxyaalaha wamaa ataakum arasuul faquduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu wuxuu nabigeena la yimaaday badbaado nololeed iyo mid aakhireed baa ku jirta aynu ayada qaadano rabbigeena aynu adeecno la kulankiisna aynu u diyaar garowno had iyo goor alaba noloshaana lama siinin inta lanoo soo jirinna ma dareemi karno waxaa kusoo koobayaa barnaamijka oo kusoo xirayaa gabay yar oo hadda ka hor atiriyey oo aan leeyahay dayashada rasuulkiiyo waa diinteenna suuban dadkii barbaa ka tegayo ma daalacdaane ma dersadaan kitaabtoo qur-aankii waa daayeen way dayaceen sunnadii oo barbaana dayine masaajidii way dabooleen oo suuqyaday doorteene macsiday durbaanka u tumayaan oo way sii durkayaane allow quluubtooda soo dub laabtooda soo dum hadduu hadal dareen leeyahoo wax damqinaayo hadduu hadal dareen leeyahoo wax damqinaayo intaa in ka badan baan darandoori u ridiye wax kaa daasoon baa daaha kaaga qaadiye maadi keli baan darisnaaye oo door ka dhiganaye hal keliya wax ma doorshay oo waad ku daalaysaaye ha hilmaami diinta adaa lagugu soo dejiyey waxba yaan ku daalin waxaan hadalkii ku dayray dhanka diintane dushaa sare iyo duubka saaro niyaddan u sii daah kusiidaa allahu akbar ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu barakeeyey ninkan aad u jeedaan walaalayaal marna abwaa marna xikmaawi waaye maasha allah ilaahay subxaana wa tacaala nin oo hibo siiyey waaye anagana wixii uu inoo sheegay insha allah inaan ka faa'iidaysano ayaan rajaynayna hadduu ilaahay subxaana wa tacaala ka raali noqdo waxaan isku dayi doonaa barnaamijyo kale oo kan ka duwanna inaan insha allah aan ka duubi doono hadduu ilaahay ka raali noqdo kan wuxuu noo noqon doonaa podcastii ugu horeeyey ee aan la sameeyo walaalkayga akram jibriil ilaahay subxaana wa tacaala ha ku xifdo saaxiib saad noo sharafta ilaah kuu sharfo aad baad u mahadsan tahay noloshana kuma xumayso saan meeshaan ugu wada kulannayn jannatul firdaws ilaah noogu kulmiyo walaalaha dhammaanna ilaahay subxaana wa tacaala ha xifdiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu